shirkan jiraacid ee Suudaanku ku qabtay gurigiisa ayaa wuxuu ku soo beegmaya iyadoo ay ka xasan tahay maalin qura muddada shirku qabsoomi lahaa wuxuuna Suudaanku uga warbixiyay saxaafadda dib u dhaca ku yimid shirkii loo ballamay 20 shirkaas waxa weeye ka dhaco iyo sababihii kala fayay dadka ehelka ah arrimo badan dartood dad ismaa oo hawla muhiima gacanta ku haya waxay codsadeen oo soo jeediyeen dadkii shirka ka qayb galay iyo kuwa diyaar u ahaaba in dib loo qaado si ay u soo gacan banaanaadaan daanu wada hadalay oo wax la isu sheegay oo ismada xiriir sameeyeen goboladii kala joogeen waxa lagu heshiiyay in bil dib loo dhigo bil markii laga bilaabo bishaan 20keeda waxaan maleynayaa waxay ku beegan tahay August 20keeda waxa dhawaan hanisi soo taraya bayaano lagu taageerayo ismada iyadoo dhanka kalena ay xukuumaddu ka soo saartay qoraal jawaab celina kuna mamnuucayso shirar ayaan xukuumaddu la socon in la qabto markii ay nala ogtahayna waa shirnaa iyadoo aan nala ogeyna waa shirnaa muhiimaddu waxa weeye waxa laga shirayaa inay waxa xukuumadda wax u dhimaya ama dalka wax u dhimaya laakiin wuxuu hadii wanaagu waa wehel madoon mar haday wax wanaagsan yihiin waxaanu filaynaa in cid waliba iska raacayso laakiin anagu hadda intaan xukuumadda u tagnay mashirna iyo musamashirku ma aanu weydiisan waayo iyaguna waa shiraan anaguna waa shirnaa wala walba waxa laga raabaa wixii ay ku shidhay markuu iyaga looga baahan yahay inay dalka iyo dadka ku tariyaan haddii ay xukuumaddu is hortaagto qabsoomida shirka loo dibdhigay August 20keeda ayaanu Suudaanku u arkin wax saa u sii weyn anagu ka malayn mayno xukuumaddu shacabka ka soo dhaxbaxday dadkii meesha anagu aanu geynay weeye barlamaanka doortay barlamaankana anaga magacaawno ismada magacaabay anaga iyo xukuumadda fasas naguma dhaxjiro hadalkaas soo baxay way iska soo bixi karaa laakiin anaguna xukuumadda bala ka malaysan mayno iyaguna bala naga malaysan mayno isku soo wada duubo baaqyada ka dhanka ah xukuumadda Cadde Muuse oo isa soo tareeya dadka qaarkoodna u arkaan in laga badbadinayo xukuumadda Puntland oo ka biyadiidan baaqyada madaxda baarlamaanka soo dhaweyntii ay ismada ku soo dhaweeyeen holka baarlamaanka mooye oo ka gaabsaday inay saxaafadda ka hadlaan shirka oo mar labaad loo ballamay August 20keeda aan bal aragno xaalku sidoo ku dambeeyo Cabdi Mudal Ciise Kuruud, TV International Garowe.